بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتيدا soo dhawaada meel walbo dunida daafeeda ka joogtaan. maanta waxaan idiin wadaa macmacaan ama casriyo aad ka heli doontaan insha Allah. saa rajeynayo waa honeycomb ama rootiga jiiska dhexda laga geliyo saa u taqaanid. markay la daawado insha Allah qaabka u sameeyay. halkan asxaabay waxaa kusoo diyaarsaday 3 koob oo bur ah. waxaa kaloo halkan ku haystaa 2 qaado oo sokor ah, qaado yar oo baking powder ah, qaado yar oo cusbo ah, qaado faxiso ah iyo 1 qaado weyn oo custard ah ama labaniyad. hadda marka intaas ayaan isku soo walaaqayaa. intaasaan isku soo dhexgelinayaa alaabada qalalan. markaa si fiican isku dhexgeliyo ayaa waxaa kusoo qasi doonaa caano. marka asxaabay caanaha waxaa kusoo qiyaastay koobka shaaha lagu cabo waa 1 koob oo caano ah. 3 koob oo bur waxaa ku qasan kartaa 1 koob oo caano ah. hadhow ma u baahanaysid inaad bur kale kor uga dartid ama aad ma aragtaa biyo kale ku darto, ma u baahanaysid, wuu kugu filnaanayaa. marka waa kana alaabtii waa soo xashay. haddana waxaa ku darayaa butter, waxaa haysato ayaa ku darsanaysaa. saliid aad ku dari kartaa, haddaa rabto blue band ayaa ku darsan kartaa. mar walba wixii available ku ah ayaa ku darsanaysaa insha Allah. haddana asxaabay waa kana saas ayaa u soo xashay saa u jeediin maasha Allah. marka wax yar oo bur ah ayaa korka uga soo darayaa, wax yar oo faraguuto yar ah si marka ay kugu dhagin oo maxaa la dhahaa baaquliga ay kaaga qabsanin. wax badan ma aha, waa u jeediin waa wax yar oo in aad u yar ah waaye. marka haddana waa daboolayaa insha Allah muddo 30 daqiiqo ayaa daboolayaa inuu si fiican kugu soo fuuro waaye. kadibna waa isku soo noqonaynaa insha Allah tacaala. asxaabay channelka haddaa ku cusub tahay oo weli subscribe ku ahayn fadlan subscribe ka dhigo insha Allah. gambaleelkana furo muuqaalada dambe si ay kuu soo gaaraan. waa kana rootigeennii diyaar waaye. saas ayaa dhexda uga riixayaa. kadibna waxaan dhexda kasoo gelinayaa butterkan triangle-ka ah insha Allah 3 geeska waxaa ka heli kartaa dukaamada. marka insha Allah saas dhexda uga gelinaysaa. haddaad jeceshahay waxaa dhexda ka gelin kartaa cheese iyo waxaad jeceshahay. marka saas isku soo kuskuusayaa. marka circle-kaas ka dhigtid ayaa meel dhigaysaa maasha Allah. saas kusoo wadaynaa ilaa 3 ilaa 4 xabo ayaa idin tusayaa insha Allah. fiidiyowga idinkuma dheereynayo asxaabay. marka saan kusoo wadayaa. marka waxaan rabay kale inaan idinka codsano in wixii talo iyo tusaale aan noo heysaan qaybta commentiga aad noogu soo qortaan. fikradihiina aad kusoo cabirtaan maasha Allah. dhiirigelin ayay noo tahay. marka insha Allah hanaga baqiilina. waa mahadsantihiin. fiidiyowga iyo muuqaalka walba oo soo gelino waxaan jecelnahay mar walba inaad qaybta commentiga noogu soo qortaan sida aad uga faa'iideysateen ama waxyaalihii kale oo jeceshihiin inaan idin soo gelino. marka maasha Allah sidaan ayaa kusoo wadayaa. saan ayaa usoo wada kuskuusayaa. kadibna waxaa u sugaynaa muddo ilaa adiga 30 daqiiqo oo kaleeta ah si uu si fiican u fuuro oo isqabqabsado ayaa la rabaa. marka kuskuuskana haddaa idin sheego waxaa waa aad u yaryaryaa kuskuuska. waxaa laga yaabaa inay kaamirada kaaga dhigto wax waaweyn laakiin aad uma waaweyno, aad u yaryaryahay marka hore. laakiin waa ujeedaa markuu khamiiro saas ayuu isku qabsanayaa isaga dhan. haddana waa soo dubayaa. waxaa kusoo dubayaa 180 degree. foornada kor iyo hoos ayaana u geynayaa insha Allah. kadib ayaa isku soo noqonaynaa markaa dubno kadib. asxaabay waa kana rootigi waa noo diyaar. haddana waxaa korka uga soo dareynaa waa condensed milk ayaa korka uga soo shubayaa. marka macmacaanka jeceshahay ayaa korka uga shuban kartaa insha Allah. haddaa intaa soo gaartay waxaa rajeynayaa inaad ka faa'iideysatay muuqaalkii insha Allah. aad ayaana u mahadsan tahay. intaa fiideo dambe ku kulmeyno. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.